bismillaah waxaan halkan u joognaa furitaanka wadada isku xirta number 4 iyo Isgoyska Tarabuunka wadadaas oo loo yaqaan wadada Cabdiqaasin waxaa halkan ugu soo kormeeray ra'iisul wasaaraha si uu horeyna ugu dhawaaqay in wadada la furo annagoo ka duulayna amarkaas madaxda sare ay bixisay waxaan maantay furnay wadadii waxaan ka dhamaynay dhagxaantii tiil iyo wax walba qashin oo yilay laga bilaabo bixi wadadu waa furan tahay shacabkuna way marayaan haddii la idmo waa guul weyn oo soo hoyatay shacabka Muqdisho oo muddo cabasho ay qabeen cabashadaas waxaa ka jawaabay madaxda sare oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo ra'iisul wasaaraha hadda oo saacadu ay tahay 12 ayaan nala joogay halkan ugu soo kormeeray ra'iisul wasaarihii waxaa amarkii uu bixiyay ayaan fulinay dhammaan hay'adihii qusayadana way ka qayb qaateen waana la fuliyay markaas wadaduna waa furan tahay shacabka biri wadadan waxay mari doonaan sida wadooyinka kale wadadan oo xirriyad sanado fara badan biri waxa mari doona baabuurtii iyo shacabkiiba dhammaan wadaduna way furan tahay laga bilaabo saacadan shacabkana waxaan u baaqaynaa inay wadooyinka xirana saasa loo furi doonaa marka duruufta timaado dhammaan madaxda iyo maamul ahaan waxaan aad u jecelnahay in dhagaxa laga gudbo laakiin waxaa jira duruufo oo hal mar aan la wada qaadi karin tartiib ayaa loo dhamayn doonaa annaguna taas ayaan hormuud ka noqon doonaa madaxda dhammaanna intaasay ka midaysan yihiin shacabkana waxaan u rajaynayaa guul